وزير ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada agaasimayaasha guud iyo mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo gudoomiyaha degmada Geerajir ee dawladda Hirshabeelle macallimiinta ardayda waalidka dhammaan marti sharafta meeshan fadhiya saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan caawa daaraa marka ugu horeyso maamulkii degmada Gurceel oo ka maqan meeshan marka uu cudur daaraa saaxiibaday sababtoo tahay iskuulka Royal waa iskuul weyn in hadda degmadii ka maqan taana sax ma marka saaxiibaday wasiirka kulli codkooda ku hadli doonaan u maleynaya xildhibaanka jooga marka uu cudur daaraa intaas marka intaas uga baxo waxaan caawo mahad ballaaran u jeedinayaa iskuulka Royal Muslim oo runtii soo bandhigay waxbarasho heer caalami ah waxbarashadaas waxay ku timid dadaal nooc walba ah oo ay bixiyeen maamulka iskuulka iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee galmudug oo ayaguna raalli ka ahayd sababtoo tahay wasaaradda waxbarashada deegaanka ka jirin ma shaqeeyeen iskuulka Royal mana imaadeen deegaankan marka ayada laftirkeeda roolkeeda in la sheego waaye in galmudug ay awoodda waxbarashada saartay qayb ka tahay maalin kasta xafladaha waxaa lagu soo bandhigaa waxbarasho marka waxbarashadaasi waxay caddaynaysaa in galmudug gacanta midigta ay ku qabatay waxbarashada iskuulka Royalna runtii waxaan dhihi karnaa haddaan waalidiinta nahay aad u qanciyay sababtoo tahay markii ugu horeysay oo naloo sheegayay oo waxbarashadiisa iyo tayadiisa naloo sheegayay iyo dadka loo sheegay oo fasiraad badan laga siiyay xoogaa fiigiisa badnaa marka dadku waxay dhaheen war fii badan meeshan yaale maxaa waaye iskuul Gurceel qofka ugu badan oo laga qof mid iskuulka ugu tirada badan $20 lagu dhigtaa haddii la yiraahdo maxay tahay marka runtii wixii naloo sheegayay oo itusoo itaabsi ah haddaan waalidiinta nahay caawa nala tusay aad baan u qanacsanahay waan soo dhaweynaynaa waxbarashadaas waxaan rajaynaynaa iskuulkaan leenahay waa intaasood kula sii dhawaataan wiilkii aabihiis yiri aaba maanta ceelka saan u sheegay wuxuu yiri maarkayda yiri saan ceelka u sheegay markaas yiri maanta waa intaasood kula sii dhawaataan marka iskuulka Royal waxaan leenahay aadna waan idin bogaadinaynaa haddaan waalidiinta nahay anagu waalidiintan kamid ahay ilmahayga dhigta sanadkii hore waa maqnay sanadkan kaabigan la fadhiyo waxaan ay bal sanadkan dhaqaaqin sida wax yihiin aad soo ogaatid marka runtii aad aan u qanacsanahay waxbarashadana runtii ayada dib laga anfici doonta xoogaa waxaa moodaa in ilmahayga kale markan keenay haddaan wax yar aan gadaal ugu laabto ayagoo dugsi dhexe u fadhiisanayaan soo aan keenay iskuulka marka waxay ka bilaabeen qaar markii imtixaanka loo fadhiisay waxay ka bilaabeen meeshii ugu horeysay qaar ka bilaabeen qaarna meel dhexe ka bilaabeen marka runtii caawana waa qanacsanahay waxaan ku qanacsanahay in ay meel aan ku qanacsanahay iyo waxbarasho aan ku qanacsanahay iyo heer aan ku qanacsanahay ay wadaan oo aan u fiirinayn degdeg aan u fiirinayn anigu degdeg u fiirinayn marka iskuulku aad u mahadsan yahay anaguna waa garab taaganahay waa run sida ay doctoradu meeshan ka sheegtay waalidka dhamaantiis wuxuu aad iyo aad ugu mashquulsan yahay waxbarashadooda sababtoo tahay markii homework lagu soo diro hadaa qadka ka maqan tahay oo aad qadka ku jirin waxa ka fakaraysaa war cunugii cashirka imaada u dirin birri sabdiga waa la soo celinayaa intaasaad ka fakaraysaa sababtoo tahay marka taas waxay caddaynaysaa in waalidkii la socdaan waxbarashadii cunugii oo markasta ay ka warqabaan runtii dad cilmi u lahaana arrintaas gacanta ku haya waana bogaadinaynaa waxaan rabaa inaan kelmadeeda soo goobo anoo leh aan u wada mahad celino iskuulka Royal Muslim baahidii aan dalka dabadiisa u aadi lahayn ama ilmahanagoo naga maqan aan ninkii la yiraahdo u diri lahayn ayuu naga kaafiyey waxaan dhihi lahaa marka aan u mahad celino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh